wararka iminka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in 10 qof ka badan ay geeriyoodeen tiro kalena ay dhaawacyo soo gaareen iyadoo la sheegay hotel ku yaala magaalada Muqdisho la yiraahdo Al Jazeera in qarax xoog badani oo ka dhacay halkaasna ay ku geeriyoodeen dad kalena ay ku dhaawacmeen waa lagu soo waramayaa qaar ka tirsan shaqaalaha telefishinka Universal inay ku dhaawacmeen kuna dhinteen wariyahayaga Cabdullaahi Axmed Nuur oo kamid ah wariyaasha telefishinka Universal ayaa kamid ah dadkii tagay goobtaasi iminka waxa uu ku sugan yahay hospitaalka Madiina ee ku yaala magaalada Muqdisho Cabdullaahi marka hore waxaad warbixin naga siisaa sidee bay xaaladdu u dhacday الله يرحمه وراء الرباع عن شابين وريه محمد عبد الكريم معلم وريه تيجي يونيفرسال قدر كتير سيدا كان داوي هاي وريه سلمان جمال فيه لما بدأوا وحياة بكسر كان نقاح وين وكذا هاي أوتيل كجزيرة مدينة مقدشو هذا قرحاتي وعامد اللي هو أديك سيدا بابور نوع وين يوجي على بقاء بابور تحملك أو لنسو بوفيه والحاقة قرحة ayaa lagu qaxiyay hotelka ayaguna markaa waxay marayeen goobta oo gaari nooca yar ay wateen oo ay halkaasi howlo iyo gaar u ay ku mashquulsanaayeen marka qaraxaas ay ku kulmeen wadada oo dad badan ay ku dhinteen oo ku dhawaad 20 qof dadku hadda ay sii gaarayaan marka Allah naxariistay waxaa inaga si gaar ah noo saameeyay wariye Salmaan Jamaal iyo Allah naxariistay dhimashada wariye Maxamed Cabdi Karim Macalin adiga oo mahadsan Cabdullaahi sida aanu la socono qaraxaasi xoogan ee ka dhacay hotelka Jazeera muuqaal sawir ah oo telefishinada caalamka iyo wakaaladaha wararkuba ay soo baahinayaan waxa uu muujinayaa qaraxaasi inuu yahay kii ugu ba'naa markii aad tagtay hotelka dabcan tirada dhimashada iminka ilaa 10 qofood la sheegaya laakiin adiga tagay maxaa meesha markii aad tagtay aad ku soo aragtay أولاً وحى لقاك يصورها أي فيلم ولا وحيه بحتى قرح انتظارك أو بعض وين يفتي أكله هذا hotel كأنه واحد يسوي جاروي ده ما hotel كفوق بعضهم كلامه حياة أبو حي أو حياة راح لسه أبو حي سوي شيء يعني تبكي كوست كده كان برضو كحوك أنا واحد اللي وحى قرح جاروي لا أديك سوي ما كعبته قال إنه عصو كلاه وتصيده كلاه بشوف بدنا نروح حد كور لا بيكسر قال في 4 أكتوبر كذا حرب بشي حركة إسامها مثلا قرح عن إنسانين في سعيه على شيء إن برضو كاسوده لكن ضد قلت كده أو على كذا هاي الفراكيل كانت في المعمل بقول كدراجر أو سيادة أولى يدعوين يدعوشرة وهي شيء كده ولا تقف كل ده هاي وحين تذكر بنيهم ذكر واحد بمرة إلى حتى لمر ولا خطير كبيرة dadka waxyeelada ka soo gaartay oo tirakood sax laga maayo laakiin tirada dadka inta wuxuu bareeyay dadkii banaanka joogay ama gaadiid ku bareeyay goobta ama albaabka hotelka iyo agaarkiisa joogay waxaana markasta la soo tagala inay ka soo taas ka doodo Cabdullaahi sida aan la socono hotelkan waxa uu kamid yahay hotelada ugu waaweyn magaalada dabcan waxa uu ku yaalaa meel nabadgelyadeedu aad loo sugay oo wuxuu u dhow yahay garoonkii diyaaradaha waxa uu dhow yahay hadda jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa xafiiskeedii waa meel ammaankeeda inta badan la sugo dabcan haddana 3 safaaradood oo diblomaasiyiin ayaa hotelka deganaa oo safaaradda Masar safaaradda China safaaradda Qatar intaasoo meesha waxay u ahayd xafiisyo sidaas oo kale waxa si dheeri ah inta badan waxaanu ka wareynaa wasiirada xildhibaanada dadka madaxda ganacsatada waaweyn dadkaas degi jiray ilaa hadda ma jiraan dad caana oo magacyadooda la soo hadal qaaday ama diblomaasiyiinta aadan ama ganacsatada aadan ama xubnaha dawladda ha ahaadaan ma la sheegay dad dhibaato ay halka ka soo gaartay أول شيء لا هذا واحد مسؤول أو أما حقوق دولة صومالية أما دبلوماسية عالمية أو حيلا سوقا في الغش يدير كفارهم وكاش السفارة يالله وإذا تنزيل حتى الحق يالله سفارة الشيناء ماشا تكوت عليه ماشي كلا وحكوتنا الإيميجريشن كلا في كذا ماشي عارم في قرمين مليوني إيه سوقنا قرح ويسامي لكن dadka goobta tagay inuu ma aysan sheegin ama mas'uuliyiinta gobolka banaadir ee degdeg ah hawsha soo qeybqaadanayay wax mas'uul ah oo wax ku gaaray laakiin waxa u baahanahay inaan ogaano oo aan sii daba galno hotelka iyo dadkii deganaa
oo iyaga laftirkooda hoteela aad dadka mas-uuliyiin u degan yihiin aad loo ilaaliyo uu ahaa xoogna qarxan oo isaga u saameeyey ujeedka isaga u ahaa laakiin number dad mas-uula oo geeriyooday ama waxyeelo soo gaartay ilaahay hadda ma hayno keliya dadka waa shacab oo mana ogola inaad hoteelka gudaha u gasho oo xitaa iska badaa dadka hadiga oo qalab diiday gaadiidka amisonku leeyihiin in ay maraan wadada xataa aadaa loogu diiday oo ciidamada nabadsuguud ee dowladda ayaa diiday in la isticmaalo wadadaasi ama la ogaado xog dheeraada oo intaas ku saabsan laakiin wararka soo socda haddii ilaahay faahfaahin dheeraada ayaa kusoo siin doona cabdullaahi adigoo mahadsan maxamed cabdikariin ilaahay ha u naxariisto wariyaasha telefishinka universal ayuu ka tirsanaa waanu uga tacsiyeynaynaa isaga iyo qoyskiisa iyo dhammaan dadkii eelada u ahaa sida hadalkaaga ku jirtay xoogaalna loo yahay waxaa dhaawacmay mid ka mida wariyaasha ugu waaweyn telefishinka universal salmaan jamaal saciid waadna u tagtay oo isbitaalku imika ku jiraa ma sheegi kartaa dhaawiciisu sida uu yahay iyo xaaladiisa caafimaad siday tahay salmaan hadda waxaan wada joognaa oo jooga isbitaalkan ku haynaa wuu fiican yahay dhammaan salmaan aad uu fiican yahay dhaawiciisa aad uu fud yahay wejiga qaybta gacta bidix ku aadan ayaa dhaawaca kasoo gaaray oo garaafa ah laakiin firib iyo waxaasi u badan yihiin laakiin qofka geeriyooday oo ilaa madaxda oo aad maaragtay dhibaatada uga gaartay waa maxamed cabdikariin oo howlasha shaqo u jooga magaalada muqdisho oo muddo kooban dhowr maalina weliba joogay isaga ayaa geeriyooday isbitaalka yaala hadda oo beydkiisana waan hayno salmaanna waa dhaawac laakiin aad uu reeyahay alxamdulilah ilaah salmaan u kuubay wararkayaga ku saabsan hotelka jaziira ee ku yaala magaalada muqdisho oo dhowaan qaraxa lala beegsaday goordhow wariyaal ka tirsan telefishinka universal iyo kaamirmaano ayaa booqday hotelka oo xaaladda hotelkaasi aada u soo darsay wariyaha iyaga cabdicasiis ibraahim okey ayaa isna warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho gaari noociisu yahay UD Candabelle oo kuwa xamuulka qaada ah oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa lagu weeraray hotelka weyn ee Jazeera ee ku yaala wadada isku xirta Elaboorka iyo number 4 ee magaalada Muqdisho ku dhawaad 11 qof ayaa ku geeriyootay qaraxaasi in ka badanna dhaawacyo ayaa ka soo gaaray gawaari la dhigay wadada dhinaceeda iyo gidaarada guryaha iyo hotelka ayaa burbur xoog leh ugu geystay qaraxaasi dad rayid ah ayaa ku geeriyooday qaraxa ka dhacay hotelka Jazeera waxaana ka mid ahaa Maxamed Cabdikariin Macalin oo ahaa wariyihii telefishinka Universal ugu soo warrami jiray gobolka Gado waxaana ku dhaawacmay Salmaan Jamaal Saciid oo dhaawac fudud uu soo gaaray waxaana labadaasi wariye marka uu dhaawaca iyo gaarida ay soo gaareysaba ay marayeen wadada isku xirta Elaboorka iyo number 4 ee magaalada Muqdisho qasaare xoog leh ayaa ka dhashay qaraxa waxaana hotelkaasi Jazeera qaraxa lagu weeraray deganaa diblomaasiyiin ajaanabi ah lama oga qasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray dadkaasi ajaanabiga ah ee hotelka deganaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo saraakiisha hay'adaha ammaanka ayaa goobta uu qaraxa ka dhacay gaaray afayeenka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Maxamed Yuusuf Cismaan ayaa saxaafadda ugu waramay qaraxa lagu weeraray hotelka Jazeera iyo qasaaraha ka dhashay hotel Jazeera halkaan oo kooxda ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed ugu soo rabeen dadka inay ku dhibaateeyaan baabuur weyn oo ay ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa ayay ku dhufteen sida u jeedeen banaanka hore ee hotelka halkan waxay ahayd dariiq u furan ummadda Soomaaliyeed iyo qof kasta oo isticmaalayo oo si public gaadiidka iyo dadweynaha ay isticmaali jireen waxaan u mahadcelinaynaa ciidanka amniga Soomaaliyeed oo runtii fashiliyay dhibaatada ummadan ay la damacsanaayeen waa gaari kaligiis oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo aad u weyn oo runtii gaari weyn ah oo ay ummad Soomaaliyeed aan waxba galabsan ay ku nafwaayeen dad badan ay ku dhaawacmeen oo suxufiyiin Soomaaliyeed oo dalkooda u shaqeynaya waxba galabsan oo dariiqan iska isticmaalaya ay ka mid ahaayeen waxa ku dhimatay guud ahaan 5 qof oo shacab intaba oo aan ku lug lahayn ahayna dadka hotelka degan maxaa la yiraahdaa dad oo yaani shaqaale dawladeed aan ahayn oo dad shacab oo jidkan iska maraayay maxaa yeelay waa dariiq muhiim ah cid walba halkan isticmaasho marka waxaan leenahay kuwii waxaan soo abaabulay ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ay la rabeen ilaahay uu ka badbaadiyay maxaa yeelay hotelkan markii hore uu buuxiyay shuruudihii xagga amniga ee loogu talagalay wasaaradda amniga gudaha hore ee hoteelada ula sheer gareysay sidaas qasaaraha yareysay 4 qofna gudaha ku dhaawacantay 5 qofna halkan dibadda ah ay runtii ku dhinteen qof kale oo wariye ah suxufi Soomaaliyeedna banaankan ku dhaawacmay Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okey TV-ga Universal
magaalada muqdisho.